وذايقي بسم الله الرحمن الرحيم سك أو عد سك أول مرة ضدك السلام كبعد سدح ذا مقعك وحجي بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan dhalinyarada iyo aqoon-yahanka halkan isugu yimid kaamiramanada iyo howlwadeennada guud ee telefishinka caalamiga iyo Universal TV waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم ورحمة الله ورحمة الله salaan kadib sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan dadka af Soomaaliga ku hadla ee daawan doona waliba si khaas ah waxaan u salaami doonaa qarniga 22aad ummadda dhala doonta ee barnaamijkan fiirsan doonta insha Allah waxaan leeyahay ها wiilashii qarnigii 22aad waxay idin leeyihiin wiilalow qarnigan anagu waaba ka tageynaahe qarniga 22aad waan idin salaameynaa waliba ayagu waxa laga yaabaa waa idin salaameynaa inay magac kale u aqaan waa idin salaamoynaa inay dhahaan laga yaabaa ayaga marka anagu waxaan leenahay waa idin salaameynaa haddaan nahay wiilasha qarniga 22aad oo dhamaadka lamaad waa ku jiraa de waa qoranay adigu waxa waaye waa qoranayaan ha ما شاء الله marka siiba waxa la yiraahdaa dadka gaagaaban faa'iido badan ku jirto aad iyo aad dadka gabdhuhu ha ku yiraahdeen hoos ku fiiriyaan laakiin waqti badan faa'iido ku jirta marka jin lagu yahay jira meel jin lagu yahay ha insha Allah bravo meel lagu kala yareyna jirto meel lagu kala dheereen oo lagu kala gaabneena jira ما شاء الله aan ku weydiiyay meesha ma soo tijaabisay adiga aad iyo aad door mar hataa door mar ما شاء الله laakiin ayadoo sida ilaahay raali ka yahay ما شاء الله oo sharciyeysan ما شاء oo الله nidaamsan aan tijaabiyay ما شاء الله nidaam fiican waaye insha Allah anagana waa tijaabi doonaa bal cawada barnaamijka cawada kugu horeysa ma ho aad iyo aad caawa igu horeysa cawada noogu soo tala gashay caawa igu horeysa magaciigana aan kugu daro Cadaawe Axmed Macalin Cali ayaa la yiraahdaa Cadaawe wiilasha meesha jooga kale ana ugu nuuray markaas ka raal noqdaan ababa insha Allah waqti kale heli doonaan gabdhaha dadka dhan way igu mashquulsan yihiin gabdhaha gabdho badan waxa u jeeda hataa waxa waaye shaqo kale aan lahayn marka aad ugu mahadsan yihiin marka qarash la soo geliyo waaye oo mahad celinaya insha Allah familkayga Cadaawe cawada maxaa noogu soo tala gashay waxaan rabaa caawi inaan kugu soo talagalay aniga waqtigana soo koobaya aad iyo aad laba barnaamij oo yar mid waa sheeko waqti kooban hal daqiiqo wax ka yar soconayso tan kalena waa hees yar oo maxaan ku yiraahdaa idinka dhan idinka farxi doonta see ku hormariyay marka sheekada ku hormariyay ma heesta sheekadan waxaan rabaa xirina ku hormariyo hay soco sheekadan waa khiyaano gabdhihii wiilasha ila jooga marka ayagana waxa la rabaa wiilasha kale in aqli sameystaan gabdhaha ma la khiyaana mas wiilasha la khiyaani doonaa sheekadan nin ayaa wuxuu qabay laba gabdhood laba xaas ayuu qabay mid ka mid ah xaasaska ayaa xanuunsatay sida caadada qofka xanuunsada loo tagaa gabadhii kale markii waxa aragtay gurigeedoo la imaanayn gabadhan kale loo ordooya cuntada loo karinooya shaqo kale loo qabana isbitaal la geeyna gaari la ku wadaa maxay istiri waxay tiri tan ruufyaanada ninkeeda ayadaa iga sarta maho ayada bisle uu habeenkasta la jiifana bisma taan ku dhiga fiirsada asagoo gaari soo watuu guriga ugu imaaday guriga markuu ugu imaaday ayuu wuxuu yidhi ay dhulka is dhigtay waa ii rafata beenbeen waa iga cadda camal maxaa kugu dhacay waaba neefsa weyse waana been asagaa ka aqli badnaa markuu u fahmay wuxuu yidhi wax yar biyo qabo uu ku rurusheeyey wuu orday dhakhtarkii u tegey dhakhtarkii wuxuu dhahay gabadhan ma xanuunsana maseera iga haya xanuun maseera iga haya marka cudur weynaa qabtaa dheh cirbadana igu dur cirbadahaasna kharash miska gelinaya biyo caafi igu dur biyo caafi igu dur wuxuu sameeyey marka gaarigii la soo orday dadka kala soo raaca qaraabada isbitaalka la geeyay tartiibaa la qaaday waa la dejiyay qolka sariirtii isbitaalka la geeyay dhakhtarkii yaa baaray qalabkii u qaatay wuxuu yidhi marka cudur halisaa qabtaa 9 cirbadoodana ku qoray maalin kasta waa la keenaya biyo caafi lagu diraa iyadu ma oga waxa isleeyahay miskiinta waxa ma oga asaga laftiisa wuu ku khasaari doonaa waxa waaye habeenkii oo dhan waxa waaye waxaan ku iraahdaa goolka sariirta waxba lama dhalin saa qof xanuunsan goolka sariirta waa laga qalay ayadana marka saas markay arinta ahayd laba xabo markii lagu duray laba cirbadood oo yiri abaa say noqotay kasta markii labada cirbadood lagu duray waa fiicnaada markii loo xoogaa biyo caafi lagu duray asagoo ogyahay markii biyo caafi ku dhamaadeen cirbadii 9 ay qaadatay ee dhulka tii kalena ay fiicnaatay wallaahi waxay tiri hebelow taan kugu dhigay isbitaal gee dhakhtar gee
cirbado u qor cuntada u kari habeenkii ka qallee waxa waaye intaa dhib soo maraysa dhibkaas dhan la soo maray waxay tiri wallahi inaan hal xaba qabinay tiri hal xaba laakiin gabadhaas taariikhdan kugu dhigay asagoo goos dambeedka qoslay wuxuu yidhi wallahi anaa kaa daruuri yidhi habeen maalin kasta biyo caafiya kugu duri jiray biyo caafi la kugu duri jiray maalin kasta laakiin wuxuu yidhi labadeenna qofkii daldaloolo oo cirbada la gelgeliyo qofkii daldaloolo labadeenna cirbada la gelgeliyo laga raay dhib qabadha marka ما شاء الله الله يحفظه بل خيبتا كله ناتور نوغل ما شاء الله soo koobaya heestan ku koobaya waa hooyo wax loo qaadan ayada mudan ما شاء الله waxa waaye anu waa heesaha waan tiriyaa laakiin xoogaa baalkii qalabkii ugu jiray gaari oo soo socday gaarigan qalabkii ku soo ilooba qalab dhan anaaba rabay inaan tuntee qalabkii dhama gaariga iga halaabay marka gaariga nima wadi masnaag gabara wada gabar ma wadi marka ma joogsaay ka joogsaay socay ma sha Allah wax gabar wada ma joogsaay heesta hooyo waa marka insha Allah haye hooyo jirkaagiyo waxaan ahay laga jaray jeex ka midaan aho hooyo waan ku jecelahay hooyo jirkaagiyo waxaan ahay laga jaray jeex ka midaan aho hooyo waan ku jecelahay jiritaanka dunidiyo joogitaanka admiga jirid laga abuuro aan jabaynin baa tahay jiritaanka dunidiyo joogitaanka admiga jirid laga abuuro aan jabaynin baa tahay jaahaga hooyoy naftayda u jeelane oo aan jiibsanayne ifka nabad ku joogo cadowgaaga ha u jabin hooyo cadowgaaga ha u jabin cadowgaaga ha u jabin hooyo cadowgaaga rabbi naarta jahannamo ka xeray jaxiimo jiif soo fardooso jannadii ku noolaa ما شاء الله ابوانا نفتر كايني